dhawaan ayay ahayd markii dawladda hoose degmada Burco ee magaaladani ka hirgelisay leerka ku shaqeeyay ilayska cadceedda kaasi oo soo saaraya bilicda magaalada dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco TV-ga kalsan wax ka weydiiyay siday u arkaan soolarkani ku shaqeynayay ilayska cadceedda ay hirgelisay dawladda hoose ayaa waxay ku tilmaameen mid lagu farxo ayagoona Xuseen ay jiraan caqabada aan badnayn kuwaas ay ku tilmaameen inay kala fog yihiin biraha ku shaqeynayay ilayska cadceedda taasina ay wax u dhimayso soo saarita كي بلعده مقالده وانا كون iyagoo arimahaasi ka hadlaya Ismaal Samad cilmi waxaan dhalinyarada Burco ayaan kamid ahay solartan magaalada laga taagay solarku waxa weeye dawa bilicdi magaalada soo kordhisay waxa weeye quruxdu soo kordhisay magaalada ka dhigtay laamiga waxa weeye habeenka wadada layaab yahay cadaanta iyo quruxdu ay ku yahay layaab weeye aad u qurux badan yahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaa hadana dhalinyarada Burco noo anfacday si aad iyo fiican waxay soo saartay bilicda magaalada ayay aad u muujisay manfac badanna way soo kordhinaysaa inta ayay ka sii badan in loo eegsado oo si fiican loo geliyo wadanka oo dhan ayay istaashaa hadaan fakarkayga ka dhigto solartan laga hirgeliyay degmada Burco waanu ku faraxsanahay talaabadan ay qaaday dawladda hoose ee ah wax qabadka solarta wax badan ayay anfacday magaalada oo in far badan ayay magaaladu mugdi ahayd haasahaatee hadda habeenkii waqti allaale waqtiga doonto magaalada si toos ah u maraysa iyadoo leerka meel walba uu ka baxayo aadaan ugu bogaadinaynaa talaabada ay qaadeen solarkan xagga amniga iyo xagga socodka labadaba wax bay ku soo kordhiyay amnigana wax weyn ku soo kordhiyo ah marka hore waxa ku xidhnaa laambado waaweyn yar oo ah qaar aan leerkooda aad u badnayn xagga imika solarka ay soo kordhiyeen oo yahay si kastaba ha ahaatee mashruucani dawladda hoose ka hirgelisay magaalada Burco ee ilayska cadceedda ku shaqeynaya ayaa noqonaya mid ay soo dhaweeyaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco Maxamed Farax Bile telefishinka caalamiga Kalsan magaalada Burco